waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa culummada oo mar walba u taagan arrimaha khatarta ah markay soo baxaan siday kaalintooda u qaadan lahaayeen oo haddana aan rajaynayo inay maaragtay guddiga halka jooga ay ka mid yihiin oo ay qaybtooda qaadan doonaan waxaan kaloo rabaa inaan halka baaq uga diro bulshada ku dhaqan dibadda ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland waxyaabaha si gaara qof walba reerkiisa u taraay marka laga tago waxaan u baahanahay inay ka qayb qaataan oo aan rabaa inaan caawa halka uga dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dawladda iyo bulshada u dhaxeeya dabcan guddiga iyo habka loo maamuli doono dib baa laga soo sheegi doonaa guddiga hadda dawladdu ay magacaawday kaliya kuma koobnaan doona guddiga culummada iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaa ka wada qayb gali doonto sanduuqaas dawlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabanay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas dawladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dawlad ahaan ay ku shubto budgetka dawladda lagu shubo waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa dawladdan aan mas'uulka ka ahay waxa looga bartay maaliyad hufan waxaad ogtihiin maalin dhexdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructure-ka indhiina macalinka sideedii baa loo fuliyay waxaan qabaa inaan kalsooni qaadaan shilin abaar lagu shubay wallaan dawladda wax kale loogu qabanay waa ogaanaysaan waxaan rabaa inaan idin sheego lacagtii 2 sano ka hor qardo loo ururiyay culimmadii waa joogtaa oo dibadda laga keenay qayb ka mid ah wax lagu qaban ilaa hadda waxay ku jirtaa account sheekh maxamed soo saasma lacagtii loo ururiyay meesha la yiraahdo la fagoray ilaa hadda account bay ku jirtaa cidna ma taabo iyadoo baahiyahaas aan sheegay ay jiraan marka waxaan rajaynayaa in dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga ay haystaan ay sanduuqaas lacag soo shubaan si loo helo shaqo qorshaysan oo meel mari karta haddii shaqadu kala yaacdo oo nin walba qoyskiisa wuxuu tari kara taro iyadoo taarsi ay si joogsanayn oo dabcan wixii waajib gaar ku saaran aan fulinaysid laakiin waxa aan anaga taarget gareynaynaa waxa weeye dadka aanan tabarta lahayn taageero faamilina aan haysan oo sida dadkii hadda aan arkaynay xoolihiina dhaafeen maciin kalena aan lahayn odayaal 80 jir ah baad qoysaskaas ku tiirsanaya meelow cararaan ma leh meelow ciirsadaanna ma leh marka waxaan u baahannahay inaan kaalintaas annaga aan gudanno waajib diini iyo mid dawladnimo weeye waxaan rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan arrimo runtii aan u wada istaagno oo si qurux badan ay u dhacaan culays kasta oo jira waxaan rajaynayaa inaan ka gudbino annagoo ilaahay kaashanayno